geluba naqdoogliyo nugal waa ku darara melay nabadi joogta. Welcome to Isidka. My name's Amina Isid, and join me as I take you on a journey to explore identity, culture, and belonging. Take a seat as I take you through time, space, and various perspectives of cultural identity. Stay tuned to see where the journey will take us today. Hello, everyone. Welcome back to another episode of Isidka. In this episode, we'll be talking to Umar Abdi, the lead actor from the recent film The Gravedigger's Wife, as well as Hoda Ali, who works for the Toronto International Film Festival and is passionate about community development and film. We will speak more with Hoda in the next week's episode. But as of right now, they were both in Toronto at the same time during the Toronto International Film Festival, where The Gravedigger's Wife was premiered. In that same week, The Gravedigger's Wife, the first mainstream film that was produced in the Somali language with this full Somali cast on Somali soil, by a Somali director. Like, the list goes on. And so it's really an amazing endeavor that the director Khadr Aidrus Ahmed undertook. It wasn't easy. It took him about 10 years to produce this film, but the fruits of his labors are paying off. The film was debuted in Finland, the director's home country, or host country, and in Cannes in France, and then in Toronto. And so while they were in Toronto, there also was news that came out that this film was Somalia's first submission to the Oscars. And this is right on the heels of the first time in 30 years that a film has premiered at the National Theatre in Mogadishu. So what does that tell you about what's happening right now? Building off of a lot of what Sagal was talking about last week, there is a space for creativity. We're hungry for it. We're excited about this representation. It really, the momentum is building, and it's really a great time for kids, for people who grew up in the shadows of all the negative, press around being Somali and Somalia, are now being the ones to have a role in changing the narrative, and adding a new face to the Somali name. And a lot of what Umar talked about in this episode even was how it's adding on to, or how basically there needs to be dignity put back onto the Somali name. And so this film and this conversation is a little bit of insight as to what that looks like, all around, as an actor, as a film lover, as an audience member, as a Somali watching a film in Somali on a screen. And so I feel like that feeling is really something that's uncomparable. If you've seen the film, please let us know what you think, and stay tuned for more episodes of Isidka. This episode also is on Ragadambe. Stay tuned for the next episode of Ragadambe. aniga Umar baa la yiraahdaa Umar Abdi Nuux oo magacayga la yiraahdaa youth worker baan ahay at the same time actor baan ahay filimada matala Finland waan ku noolahay Helsinki. Thank you for inviting me. My name's Hoda Ali. I'm from Toronto, Scarborough. I am a person who works in both community and film. I work in the creative industries. All right, so welcome. So today we're going to talk about The Gravedigger's Wife, that recently just premiered at the Toronto International Film Festival, that brought the two of you together. And so you guys are just coming off of that. So how was the film festival? How was it? So initially, I work at TIFF, the Toronto International Film Festival, for the last 4 years. So when I heard there was a Somali film coming, I was genuinely excited. I wanted to make sure that there was space for Somali people to come and watch the film, and for the filmmakers to also be involved in some sort of creative endeavor throughout that project. So when that was, I guess, announced, I was super excited. I reached out and said, hey, can we do a Zoom call for young Somali creatives? And that's sort of how the ball got started. So the Toronto Film Festival happens first 2 weeks of September, so September 10th to the 19th. I'll let Umar jump in as to when he landed in Toronto and what that was like. But for my end, coming from a film festival curation side,
I was excited for the film to happen. And Umar, can you tell us about what it was like bringing the film first to Cannes and then to Toronto Film Festival? horta filimkani filim weyn oo caalamka u socday buu ahaa markaas anigu waxaan ka hadli karaa haddii imika aan tan Toronto ka hadlo filimka waxaanu ku soo iskaran gareynay marka hore kan oo lagu bilaabay marka kan film festivalna waad garan kartaanoo waa qof walba dreamkiisa magaranaysa ay film sameeya marka maasha Allah khadar Cabdiruus Axmed inanka directorka ee qoray filimkan de waxa ahayd isagana dreamkiisa in halka maalin kamida uu filimkiisa uu yaalo de marka kan laga hadlayana waxa weeye waxaynaan malayn karin waa just waxaynu imagine garan karno oo sida ay tahay iyo soo dhaweynta iyo sida filimada dadka u saaxiibka ama yaqaana ay u imanayaan ay film walba u xiiseynayaan ay film walba ay maxaa la wax weeye ay ula dhacayaan ama ay feedback uga bixinayaan marka aan u soo noqdo Toronto way ka duwaneed filimkan meelo kale oo Finland kamidana waan premierkiisa ku soo qabanay marka Toronto was just special waayo waxay special ku ahayd sidan ay hoodo jeedo hoodana maasha Allah ay ka soo shaqeysay aad baan ugu mahadcelinaynaa inaan aragno Soomaali meesha markaas theaterkii aan joognay 50% ama ka badan dadkii daawanayay inay Soomaali noqdaan taasi marka farxad dheeraad ah ayaa naga noo ahayd waxaanu la qaybsanay waxaanan dadka kale la qaybsan karin waayo filimkani waa film Soomaali buu ku hadlayaa marka Soomaali la leeyahayna dadka fahmi kara ama backgroundkoodu Soomaali yihiin ama halkan ku dhashaan ama ha ku noolaadaan ama iyagoo weyn ba halkan ay yimaadaan يعني waxay arkayaan waxyaabo yaryar oo specifically aad u yaryar oo ku salaysan dhaqankii iyo aragtida iyo visualka iyo markaas aad bay uga duwaneyd dadku aad bay ula dhaceen dadku aad bay u qiiroodeen u ooyeen annagana waxay noo ahayd waxaan la filan karayn yani aniga kun jeer bay iga muhiimsanayd kan film festival oo de producer waaweyn iyo actor waaweyn iyo maxaa dadka filimada ku jira ay daawanayaan ay kula joogaan oo feedback ku siinayaan oo xiriir ay ka samaysanayaan laakiin just kaliya inaan arko Soomaaliyeed dhalinyarteedii oo daawanaysa wax weyn bay ahayd wax weyn bayna ka bedeshay runtii dad badan oo dhalinyaro oo filimada ku jiraan magaranaysa waan isbaranay taana de mahadeeda iyo ka shaqaynteeda hooda ayaa leh hooda organize gareysay one day insha Allah taala I want to see hooda inay ama producing company ama say doonta ama wax kale oo weyn oo la isugu yimaado insha Allah taala in aynu helno waayo dadka noocaas ka shaqayn kara waa the right person and still mahada iyada iska leh. All right, hold on. That's putting pressure on you. That's so much pressure. He doesn't even know. But inshallah, I think I have like full faith that you can carry that on. Being in that space with that many different Somalis and watching that film really did build that sense of community and like belonging. And I think just made us have like a really great connection watching that film. Mm-hmm. So I want to ask you specifically, coming from Finland or growing up in Finland and being able to go back home to Djibouti, you know, at least to Somalia, to shoot this film. And it's a very different type of film from what I can gather than how we've typically seen like Somali riwayats and stuff like that. So how was that shooting process and getting into the acting process for you? Wallahi, horta maxaa la yiraahdaa waxa weeye de saaca jeedo anu Finland baan ku koray Finland baan maxaa la yiraahdaa waxa weeye ku soo barbaaray markaad eegto annagoo de weliba dad cadaan oo iyaguna maxaa la yiraahdaa nala qaybinaya filimka ama de sameynay aanu halkaa u kacayno mas'uuliyadoodii iyaga laftoodii aanu lahayn luqadda lagu hadlaya ay tahay luqadii waddankeennii de luqad Soomaaliyeed at the same time magaranaysa Englishna lagu hadlayo Faransiisna lagu hadlayo haddana markaad eegto walaal waxaad moodaysay in anigu maxaa la yiraahdaa waxaan aniga feelingkayga haddii aan ka hadlo wax weyn oo ka duwan wixii hore aan sameynay wax aan ku qanacsanahay aan la dhacsanahay yani very patient baan ahaa waxaan u malaynayaa filimka haddii filim kale ama Canada aan ku duubo ama aan ku duubi lahaa Mareykanka as long as ay dadka duubaya iyo dadka around me ila jooga ay Soomaali yihiin maxaa la dadka shaqaynaya Soomaali yihiin ka biyaha ii keenaya Soomaali yahay waxa weeye walaal waa different mood waa different vibe anu kelmadaha Englishka aad ma aqaan laakiin waxa weeye waa wax ka duwan waxa weeye waa yidiilo ayay ku gelinaysaa kelmadda yidiilo waxay ku gelinaysaa motivation yidiilo waa motivation markaas aad bay uga duwaneyd wallahi runtii anagu maanaan arkin dadka qaar baa markay lugteeda arkaan nabar weyn oo iga soo gaaray baa jira filimka laakiin anu ma u arko nabar waayo
waanu raaxaysanayna waanu ku raaxaysanayna Djibouti. The feeling is just clear inaanu samayno film Soomaali ku hadlaya bilow ilaa dhamaad dadkuna wada matalayaan ay Soomaali yihiin meelaha la arkaya ama maqaaxi aanu fadhiisano ama aan magarasa visual ahaan filmka kama sheekan karo meelaha badan inuu teginay laakiin wax wal oo sawira ama sawir wal oo muuqda ama gidaar ha ahaado ama wada ha ahaato ama bad ha ahaato ama miyi ha ahaato ama magaalo ha ahaato in dadkeenu yahay waxa weeye waa big thing bay ahayd magarasa walaal. And so how do you feel like this film I think it's one of the first steps to change the perception of Somalis all across the world. So is there anything else that you kind of want to add on that, and even the work that you will continue to do in the future? How do you think that's going to change Somali perception? waxa weeye walaal sababta uu Khadar magarasa uu filmkan u sameeyay waxyaabaha ugu weyn ee ka koogaa waxa weeye inuu keeno inta Soomaalida laga arko different angle oo aanay ahayn document laga soo duubay oo pirate ka hadlaya ama ka hadlaya bidcadbadeed ama ka hadlaya argagixiso laakiin Soomaali hadaynu nahay inaynu dad sheekooyin badan leh dad wanaagsan dad qurux badan maxaa la yiraahdaa waxa weeye inta yar ee caalamka laga tusayana ay tahay inta yar ee siyaasadda loo baahan yahay in laga tuso marka walaal aniga hadii maanta hadaan anu chance haysan lahaa wax kaleba ma sameeyeen waxaan sameyn lahaa anu film Soomaaliyeed anu waxaan ugu ballan qaaday filimada marka filimada ajaanibka ee hadhow tolo imanaya yani waan ka taxadaraya waan ka fiirsanaya filmka aan anigu ku jirayo ama aan gelayo wuxuu doonaha ahaado laakiin as long as qof Soomaali uu film samaynayo ilaahu film yar magarasa waxa weeye haduu xitaa 15 minutes samaynayo oo uu filmkaasi film wanaagsan yahay oo positive magarasa oo bulshada tusaya waxaan ugu ballan qaaday inaan anigu xitaa imaado aan caawiyo without salary xitaa inaan magarasa aan ugu matalo ku duubo marka runta la doonayo laakiin waa inay haato wax dhab ahaantii Soomaalinimo matalaya Soomaalinimo ka hadlaya oo dadkan in aynu mar labaad u keenno positive side ka Soomaalida taasina waxaanu ku badbaadinaynaa dhalinyarteeda generationada dhalan doona kuwii dhashay iyo kuwa ka dambeeyaba in ay dareemaan Soomaalinimadu waxay tahay in Soomaalinimadu wax qurux badan tahay inaanay Soomaalinimadu ahaanun wax dib ah waayo tusaalaha kaliya aan soo qaadan karaa waxa weeye qofka Soomaaliga waliba ninka anigu ma garanayay dumarku siyihiin waxa jirta waqtiyada qaar marka club uu tago gabadh ajnabiya oo isku dayo inuu magarasa shaqaasado haday ku tiraado where you from inaanu oran ba from Somalia inuu magarasa meelo kala sheegto from Ethiopia from Dubai from wherever magarasa waxa taasina waxa ku tusinaysaa isagu qaladka ma lahe te magicii baa la xumeeyay marka magicii buu qofkii ka ordaya marka walaal maxaa la yiraahdaa waxa weeye waa jidku furay filmkani jidka uu furayna waxaan rajaynayaa in dhalinyaro badan oo kale ay ku daydaan maasha Allah intaasaan anigu ku faraxsanahay ku qanacsanahay ma haddaas oo dhan walaal waxa weeye madaxeeda waxa leh Khadar Caydaruus Axmed inanka qoray ee hagay ayaa magarasa ma haddaas oo dhan iska leh inanka u samray 10 sano ayuu filmkan ka shaqeynay filman kala soo sameeyay laakiin 10 sano kuna aamini waayay qof kale oo ajnabi inuu filmkan duubo ma haddaas oo dhan walaal isaga ayaa iska leh. I'm glad you mentioned that last part, that it took 10 years for this film to come out. So other people who are listening, who are maybe considering getting into the creative field, or, you know, like they're just kind of focusing on something, what would you kind of say to them? waxaan u sheegi lahaa horta filimada marka horta filmka qofku markuu qorayo wuxuu jecel yahay horta ha ka qoro waa qodobka koowaad ma fahamtay laakiin hadiiba uu israa waxa weeye filimadu maanta waynu ognahay hadii uu israa film samee يعني فيلم كاس وين وحو كدوين ياهي وح يسوي وحن وقرية هرت وين وكدوين هذا ده فيلم هذا كلا عالم كتير إنسان ها وين وحقيقي كدوين هذا idea ده real تاي يسوي ليه هاي at the same time وحن دوني يعني كبر هرجيو شيكوين كنا الصوماليات شيكوين بدن أو آن كسكلي آن لطوبينه آن لقرينه آن لقى فكرين باتشرته قف كصومالي إما كادو بودكاستيجان أتسمعين ساعات كسمعين كرتام محل الأول فيلم تدك صوماليات محل الأول أتكاد لسه ama dadka Soomaaliyeed maxaa la yiraahdaa waxa la hadlaysaa film ka sameyn karta markaan waxaan oran karaa war sheekooyinka Soomaalidu way sahlan tahay ka qora yani hay soo dhanina sheeko Soomaaliyeed baa qortay cidina accept ma sameynayso waa la qaadanayaa maxaa la yiraahdaa as long as sheeko wanaagsan ay tahay ka samee dhaqan marka la yiraahdo dhaqan ma jire oo ma oranayo dhaqanka ka samee dhaqankii qofkii waxa laga yaabaa inay ku adkaato sida wadista dhaqanka xaqeen ka raadiyaa marka inuu raadiyo no just typical your story gurigaaga 7 carruur aad ku wada dhalateen sariirtaad maganaysa waxa weeye seexan jirtay hadii maxaa la yiraahdaa waxa weeye adiga lagu qabsado sida aad beenta u sheegay waxaas oo dhan waxa weeye waa inaga ayaa iska leh ma baatay hadii ilmaha
saraawiisha loo kala magaranaysa waxa loo kala saari jiro aynu iska daba dhalnayo magaranaysa waxa de cabdisurwaalkan uu ku weynaanayo ama kabaha la wada xidhanayo wax weeye social life-ka cid leh ma jirto Soomaali baa iska leh wax weeye markaas inay Soomaalidu ka qoraan wuxuu doona ha ahaado malcaamada in maxaa la yiraahdo malcaamada iyo madrasadu tagayeen wax ka qor dhalinyar baan imika la sameynay Syria magaranaysa TV series ka waxyaabaha kamid ka ah markaan ku nina ideyooyin noo keena waxa kamid ahaa dukaan baa 9 fiidnimo la xidhi jiray marka dukaanka todobada wixii ka dambeeya waa 50% magaranaysa waxay cabitaanada energy-ga la cabo waxay sameyn jireen intay marka todobada galaan marka malcaamada ay u socdaan todobada intay galaan bay way sii xasayn jireen energy-ga oo dhan hadhow tolo markay soo baxaan bay energy-gu dhamaanaya ayay soo iibsan jireen waa just typical Soomaaliun baa magaranaysa markaas sameynayay waxaan ku niri ku soo dara way ku soo dareen qaarkood hal waxa weey caagagan hadii rabbi xogmayo ice cream-ku ka dhamaade inagu aanu suugada ku shubanno way ku soo dareen marka waxaan leeyahay rooga cas ee noo yaala cuudka maxaa la yiraahdaa waxa weeye uunsiga marka walaal waxa weeye way badan tahay wax laga sameyn karaa laakiin as long as space to waxaan in magaranaysa waxa weeye Soomaali lagu sameeyo muhiimadda ugu weyn waxa weeye luqadda bal in la isku dayo Canada ba lagu sameeyo laakiin luqadda Soomaaliga in lagu sameeyo half noqoto saasaan ku talin lahaa You play the character, so can you tell us a little bit about the film first, and then I want to ask him personally about the character that he plays, which is Guled, which to me is a character that I don't often see Somali men playing, which is this nurturing father. I know that's sad to say, but yes, it's a very nurturing father who's taking care of his wife. It's like a very vulnerable role, and he plays it really well. Can you just tell us a little bit about the role that you played and sort of what it was like playing that character and in that way? horta character kan khadar baa isagu maskaxdiisa ka abuuray oo khadar bay maskaxdiisa aydo khadar baa anu sidii aanu metelay isaga ay sheegay laakiin runtii waxaan oran karaa maxaa la yiraahdaa wuxuu jacaylka guriga dhex yaala hadeenan inagu hadii rabbi xugmo magaranaysa hadeenan inagu arag laakiin waa shuur hooyooyinkeen iyo aabayaasheen in ay jacayl isku guursadeen in magaranaysa waxa jacaylkooda haduu doono ixtiraam isu bedelay yaani waxa laga yaabaa inaan la arag dad Soomaaliyeed oo isku dhigdhigaya ama isku dhunkanay guriga dhexdiisa muhiimaduna ma hadda jacaylku dhunkashadu ma aha magaranaysa waxa yaani there's any kissing in the film okay ha wax dhunkasho filmkan magaranaysa yaani inaan ka hor dhaca ma ahaan uu sheegi maayo filmka gudihiisa laakiin sidii doontaba ha ahaatee muhiimadu waxa weeye yaani jacayl in la tusi karo aan ku salaysnayn magaranaysa waxa weeye ama dhunkasho ku salaysnayn ama waxyaabo kale ku samaysan jacaylkii oo dhabana magaranaysa la isto taasina waa background-ka waa jacaylkeena sidii umadu ay isu jeclaan jirtay markaas taas inaga inooma soo baxdo oo de waalidka dad ku tiraad aab hooyo iyo aabiyo hooyo sidaad ku kulantan iga sheekee wallahi ma garan karo de waalid ka sheekayn kara laakiinse waa wax filimada markaynu matalno aynu ogaan karno de inuu jacaylina dhex yaalo markaas hooda muu sahlaneen hooda ay weydiisaysa may sahlaneen in maxaa la yiraahdaa waxa weeye Guuleed aan iskaga boodo oo matalo walaashay Yasmiin Warsame ayaa xoogii caawinaysa Nasra oo iyaduna aad ugu la jirto waxa weeye chemistry-ga aad si fahmay waa hadeen chemistry-ga is fahmeen maanan sameeyeen laakiinse waa jeclay waa sheekooyinka aan jeclahay inaynu caalamka tusno inaynu dad isjecel jacayl dhex yaalo wax walba jacaylkooda uga qiimo badan yahay inaynu nahay naga lafteenu qoyska ilmahaygii aanu jecelnahay anagu aanu jecelnahay waana taas sababta keenaysa filimka haddaan qisadiisa ka yara sheekeeyo maxaa la yiraahdaa waxa weeye reerkaa isjecel oo gabadhii xanuunsanaysa laba wiig gudaheedna ay tahay in kelidii lagaga bedelo marka labadaa wiig aniga shaqadeedu waa xabaalaha ka shaqeeya xabaalahan qodaa lacag aan keli kaga bedelo ma hayo lacag igu filan ma hayo laakiinse waxaan isku dayayaa wax wal oo aan u samayn kari lahaa inaan xaaskaygu ay ku badbaado waayo xaaskaygii baa nolosheeda nolol kale ma lihi oo aan iyada ahayn waxaan markaana ku jirta keliya ma aha intaa murugade anagoo faraxsan anagoo quslina anagoo isku kalsoon anagoo magaranaysa waxa weeye iscaashaqsan intaba filimka waa lagu arkaya It's a beautiful story all the way around. Yeah, so how did people respond to seeing that? Because I definitely agree with Waldo's point. Like, we kind of grew up, mom does her own thing, dad her own thing. So even seeing that level of vulnerability in a Somali family, and also and seeing the wide range of emotion as well, is definitely something that probably it seems like it's a very touching story. So how did people respond to it? anu kan markii ugu horreysay daawado premierka yani filimka waan soo metelay waan ogaa wuxuu ku salaysan laakiin markii
dadkii badnaa faraha badnaa dee boqolaalka qof dhaafiyey ma fahantay I don't know magaranaysa waxay dee tiyaatarka aan ku bilay garanayna intuu ahaa laakiin 500 iyo ka badan magaranaysa dadka meesha joogay oo dee markuu filimku dhamaaday anigu waan ooyey waxaan ka ooyeyna waxa loo ooyey qisada loo ooyey maxaa yani anigii baa dib u rumaystay wixii aan matelay ma fahantay marka ummadii oo dhanna dee way nala ooyday way nala qoslayeen way nala farxeen qosol iyo farxad iyo muruga way ku jirtaa marka anu horta dadkaas saasaan oran karaa laakiin dee anigu kii matelay baan ahay laakiin hoodo oo halkan fadhida iyadaa ka sheekan karta markii daawanaysay iyo dadkii la daawatay iyo say ooga sheekaysteen I can tell you about the reactions that I've received. Just being in that theater, watching with that many Somali folks, I got a bunch of text messages right away. Like, this just made me cry. This was amazing. I just felt sort of wrapped up in this story, this beautiful, beautiful story about this husband caring for his wife and having their child. I think we were joking around like, oh, are you reading the subtitles? And the subtitles don't do the Somali justice at all. It's like there's so much more to the language. It's so much more poetic. It was just beautiful watching the film in your native language and having Somali people on the screen with a beautiful storyline. There was just I literally couldn't take my eyes off the screen and got super emotional just watching the film. So yeah, it was amazing. It was epic. It was the first Somali film, Somali language, Somali, like it was just epic. It was great to be a part of. Yeah, it's so many firsts too, but also it just seems like it's such a, like, you asked Umar about like his character and the vulnerability that he showed. So I think it's one thing that our families are very like kind of like fragmented in the diaspora, but also even when you think about like Somali riwayats, like the last like maybe 10-15 years, like Qabio 2 and all of those type of things, it was also like a hyper toxic crazy family environment. So to watch these over exaggerated, like over the top storylines. And this seems like it was the complete opposite, like slow and really kind of like steeped in. And I haven't even seen the film, but from even like the way they talk about the film and what you can see in the image, it seems like it's probably the opposite. So what do you kind of want to say or touch upon, like even that kind of representation that you might not have seen in person in a long time? Oh, in terms of like even the style of the film, knowing that it's completely different to what we've seen Somalis being portrayed as or portray in actual films. It's a much slower, more art house film. It's really cinematically beautiful. I think it's so important to be able to, I guess, share and experience stories that are like the everyday, that are just about a family, that is about like this love, these everyday experiences that we can have and not be sort of overtaken by all the stereotypes and all the different perspectives that people have about being Somali. And so for like some, was there an opportunity, like even when you guys like, after you all watched the film and came out, like, did you all like kind of talk about it, like in a group, like for people who've never even been back home, like how did it feel to even like see parts of, you know, like Djibouti and kind of how did that all fit into the fabric of like a country where everybody is Somali or majority of people are Somali or people that look similar to them? Yeah. So immediately after the film, we sort of all spilled out right into the lobby. And I wish I would have told you about the story, but while he was on stage doing the Q&A, he's like, okay, so everybody come outside, we're taking a picture, and just speaks to like his general, like, all right, this is epic, we're going to do this. Yeah. So we all ended up huddled in the hallway, all taking pictures and just reacting with one another and just having that moment of like, this is what we just witnessed. This is a beautiful film. And I think everybody was just still living in that high moment of like, this is coming from our community. This is like a beautiful story. Everybody was sort of just in love with it. But yeah, immediately that was just, it was all love. It was like a big ball of love right after the film. I think there's something to say in watching a film in your own language and having Somali people on screen and the audience speak Somali. I think that also added to the emotion. But the reaction off the bat has been, this is like a beautiful, touching story, and everybody sort of finds a piece that they identify with, be it like
the tiny little moments in which like you find humor in the old lady's face, or like the wedding scene that you're like, oh, this looks like a wedding I've been to, or there's many moments in which people just click onto and hang on to. But immediately everything that I was told right off the bat from everybody we were watching it with was like they got really emotional and loved watching the film. So what do you want to be remembered for, like in terms of your work and your legacy? anu horta waxa ugu fiican ee aan doonayay inaan noqdaa waxa weeye waa inaan tusaale u noqdo maxaa la yidhahdaa waxa weeye Soomaalida waliba especially dadka yaryar ee qurbaha ku dhasha ama ku koro waayo aniga lafteedu waan ku koray marka in maxaa la yidhahdaa tusaale wanaagsan aan u noqdo tusaalaha wanaagsan oo ah in wax walba aan samayn karno we can do it ma fahantay as long as magarasa qofkuna magaciisa uu dhowrayo lacagta meel walba in laga dabagala maaha magaca ayaa ka fiican markaa magacuna inuu joogo tusaale wanaagsanna aan u noqdo dadkayguna ay igu farxaan igu soo tusaale qaataan qaarkoodna magarasa waxa ay dabagalaan ay yidhaahdaan magarasa hadduu cumar waxaa sameeyay waan samayn karnaa waa haddii dee soo far inta gaadho insha allahu tacaala tusaale wanaagsan just magarasa good example aan u noqdo maxaa la yidhahdaa waxa weeye dhalinyartayda intaana had iyo jeer dhalinyarta waan la hadlayo waan ka hadlayo opportunity-yada iyo waxyaabaha badan ay samayn karaan maxaa la yidhahdaa waxa weeye oo iyaga laftooda dee ma hawl yar oo double personality ayay qaarkood ku nool yihiin oo gurigiina markay yimaadaan magarasa waa qof kale markay bannaanka joogaanna waa qof kale at the same time marka dee ay weynaadaan hadhow toole iyagaa decide garanaya sida ay u noolaanayaan laakiin intaasoo keliya magarasa good example aan u noqdo dhalinyarta Soomaaliyeed ee soo socota ku kala naqroon